فيري إذن كايدن وي بارمان كان تشري أي فريستا حديث خيري هلا بانو أني قفنت تاجنين أنو جواب معها فريستا مركز سيد جواب ديسينيا xasan sheekh oo aadan madoobe u adeegsaday horisaaga xildhibaano ku wajahnaa Kismaayo kulankii baarlamaanka maanta oo gacanta la isku qaaday xildhibaanada mucaaradka oo xoogeysay iyo qorshihii villada oo fashilmay qodobadaas iyo kuwa kale ayaan saaxiibayaal ku falanqayn doonaa warkan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhameystiran aynu ku horeynay xasan sheekh maxamuud ayaa aadan madoobe u adeegsanaya horisaaga xildhibaanada ku wajahana deegaanada maamulka Jubbaland gaar ahaan magaalada Kismaayo warar hoose oo helayo dhanka wararka waxa ay sheegayaan in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu markan adeegsanayo awoodda gudoomiyaha golaha shacabka aadan madoobe isla markaana uu ku amray in la horisaago dhammaan xildhibaanada mucaaradka ah ee ku wajahan deegaanada maamulka Jubbaland madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa laga soo xigtay in cawaaqib xumo weyn ay ka dhalan doonto haddii xildhibaanada Jubbaland ay aadaan magaalada Kismaayo ayna ajiibaan dalabka Axmedoobe ee yeerisa ah waxaana hadda soo baxaya xogo hoose oo tilmaamaya in amar guud la soo saari doono taas oo ku wajahan dhammaan xildhibaanada iyo siyaasiyiinta reer Jubbaland ee Kismaayo ku wajahan xildhibaanada ayaa la xaqiijiyay in laga reebayo safarada iyo sidoo kale tagista deegaanada Jubbaland waxaana hadda socota qorshaha diyaarinta liiska xildhibaanada iyo magacyadooda iyadoo ay xogaha muujinayaan in madaxweyne xasan uu qaadayo tallaabo la mid ah midii hore u qaaday maxamed cabdullaahi farmaajo oo xilligii dalkan uu xukumayay cunaqabateyn weyn saaray maamulka Jubbaland Axmedoobe ayaa hadda la fahamsan yahay in uu si weyn uga shaqeynayo dhabarjab siyaasadeed iyo qorshe weyn oo araxda goyn doona xasan sheekh maxamuud iyo kooxdiisa waxaana aadan madoobe markan uu qaadayaa tallaabo kale oo wiiqi karta awoodiisa ee golaha iyo sidoo kale si hogaaminta baarlamaanka haddii uu isku dayo horisaagida damaca xildhibaanada Jubbaland waxay ka dhigan tahay in mooshin culus miiska la soo saari doono xildhibaanada Jubbaland kasoo doorto ayaa shir jiraayad oo ay qabteen waxa ay afcad ku sheegeen inay aqbaleen yeerisa Axmedoobe ugu yeeray inay Kismaayo tagaan xildhibaanadan ayaa laga soo kala doortaa gobolka Gedo iyo Jubbooyinka waxayna u badan yihiin beelaha Mareexaan ogaadeen Gaaljecel iyo Dir waxayna gabi ahaantood ay sheegeen inay qaadaceen Axmedoobe yeerisiisa isla markaana dib ugu laabanayaan magaalada Kismaayo xildhibaanada Jubbaland waxay leeyihiin waxaan leeyahay kursigiina Axmedoobe ma jira shacabka Soomaaliyeed ayuu jiraa ee dalka doorasho qof iyo cod ayuu aaday ayuu yiri Senator Iftiin Xasan Baasto oo kamida xubnaha mucaaradka Axmedoobe isagoo si cad u sheegay inaysan aadi doonin deegaanada maamulka Jubbaland Axmedoobe iyo maamulkiisu waxay u muuqdaan dagaal adag inay ku jiraan hase yeeshee xildhibaanada Jubbaland laga soo doorto ayaa si cad loogu diiday inay ka dhoofaan garoonka diyaaradaha Dhinacade waxaana warqad uu ku siixan yahay gudoomiyaha golaha shacabka loo geeyay hay'adaha amniga ee garoonka kuwaas oo lagu amray in wax xildhibaan federaal ah oo Jubbaland ka soo jeeda uusan ka bixi karin garoonka Kismaayo aysan aadi karin cid dawladda aysan fasaxin taas oo ka dhigan qaadista tallaabo siyaasadeed oo dhexda goyn doonta qorshihii siyaasadeed ee xasan sheekh maxamuud iyo tiimkiisa lama oga sida xaalku noqon doono hase yeeshee waxay u muuqataa in dagaal qaraar oo siyaasadeed ay geli doonto ee dawladda dhexe si Madoobe meesha looga saaro xildhibaanada Jubbaland ee ka soo jeeda maamulkaasi ayaa markii ay shirka jilay dhameysteen waxay tageen guriga gudoomiyaha golaha shacabka aadan madoobe waxay u sheegeen inay u socdaali doonaan Kismaayo isla markaana ay ka codsanayaan inuu fasaxo oo aan la hor istaagin gudoomiyaha aadan madoobe ayaa xildhibaanada u sheegay inaysan marnaba bixi karin wax fasax ahna uusan siinaynin xildhibaanada Jubbaland uu hogaaminayo Xasan Firimbi ayaa gudoomiyaha golaha shacabka u sheegay haddii airportkan nagala soo celiyo baarlamaanka baan foodo ka bilaabi doonaa oo Firimbidii baan la soo bixi doonaa gudoomiyaha aadan madoobe ayaa uga digay foodo iyo qas xildhibaanada kuna wargeliyay inay hoggaansamaan shuruucda dalka halkaas bay kala joogaan xiisada dawladda dhexe iyo Axmedoobe waxayna u muuqataa in gudoonkii golaha loo isticmaalay loona adeegsanayo cunaqabateynta xildhibaano deegaan gaar ah ka soo jeeda taas oo waxay ka qeelinayeen Axmedoobe iyo tiimkiisa sidoo kale marka loo eego tallaabooyinka siyaasiga ee Xasan iyo kooxdiisa ay qaadayaan waxay sii fogeyn doonaan xubnaha Jubbaland ku metela dawladda dhexe waxaana ay sii kala fogeyn doonaan dhammaan siyaasadda dalka iyadoo madaxweyne Xasan lagu eedeyn doono in uu kala geeyay beegsanayana beel gaar ah iyo dad gaar ah taas oo waxyaabaha ugu waaweyn hadda lagu eedeynayo Xasan iyo kooxdiisa xukunka Villa Soomaaliya joogta
xildhibaanada Jubbaland laba garab ay kala noqdeen kuwa waxay taageersan yihiin Madoobe kuwana way diidan yihiin waxaase badan kuwa diidan ee dowladda dhexe ee raba Madoobe kuna wajahan magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka ah ee Jubbaland dhinaca kale kulankii baarlamaanka maanta ayaa gacanta la iskula tagay xildhibaano badan oo mucaarad ay si weyn uga soo horjeesteen qorshihii lagu meelmariyay miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2025 waxaana ay sheegeen in dowladdu ay ku fashilantay xisaabtarka miisaaniyaddii hore iyo kordhinta miisaaniyadda ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo guud ahaan kuwa qalabka sida waxaana maanta dood iyo buuq dheer uu ka dhashay kulankii baarlamaanka kaas oo xitaa sababay in xildhibaanada qaarkood gacanta ay iskula tagaan sida ka muuqanaysay muuqaalo iyo sawir laga soo qaaday kulankii maanta xildhibaanada ay ku yeesheen xarunta Villa Hargeysa ee Muqdisho haddaba dooda xildhibaanada iyo sidoo kale buuqooda ayaa hareeyay miisaaniyadda dowladda ee sanadkan waxaana si weyn loogu eedeeyay dowladda ku tagrifal awoodeed iyo dhabar jabin ay ku sameysay qorshaha siyaasadeed ee dalka iyo dowladnimada Soomaaliya lagu adeegayo waana mid keentay in Axmedoobe iyo maamulada kale ay qaadacaan hanaanka shaqo ee kooxda Villa Soomaaliya kulankii maanta ee baarlamaanka ayaana ugu dambeyn ku soo dhamaaday fashil wajigabax xildhibaanada mucaaradka ah ay afcad ku sheegeen in la afduubtay baarlamaankii una afduuban yahay gudoomiye Aadan Madoobe iyo Villa Soomaaliya waxaana ay sheegeen in haddii aan laga hortagin qorshaha siyaasadeed ee socda dalkan meel dheer laga baadigoobi doono sida dooda hadalkooda ay u dhigeen mudanayaashii maanta ay ka hor hadlayay kulankii baarlamaanka ay ku yeesheen xarunta Villa Hargeysa ee Muqdisho xubnaha xildhibaanada golaha shacabka ayaa dood culus maanta ka yeeshay miisaaniyadda dowladda oo sanadkan ee soo socda noqon doonta 1,359,714,328 waxaana sidoo ku dhawaaqay gudoomiyaha baarlamaanka miisaaniyaddan ogolaatay 122 xildhibaan wax ka aamusayna ma jiro sida gudoonku uu sheegay wasaaradda maaliyadda Soomaaliya ayaa soo gudbisay miisaaniyad u muuqata in hal dhinac ay ka raran tahay waana mid abuurtay dooda iyo fadeexada weyn ee gilgishay kulankii maanta ee xildhibaanada kuna soo dhamaaday buuq iyo gacan ka hadal ay iskula tageen mudanaha ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya xaaladda siyaasadda ee Soomaaliya ayaa mar kale qarka u saaran fashil iyo wajigabax waxayna u muuqataa in kooxda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay ka dhicisoobeen qorshihii siyaasadeed ay ku doonayeen in talada dalka Soomaaliya ay ku sii heesaan hadda waxay u muuqataa Xasan inuu garowsaday halka jihada siyaasadda Soomaaliya si aadayso iyo in khilaafaadka sii kordhaya dani aysan ugu jirin maamulkiisa iyo nidaamka dawliga ah ee Soomaaliya waxaana uu ku qasban yahay sida falanqeeyaashu ay qabaan in madaxweyne Xasan uu ku soo laaban doono wadada saxda ah iyo dastuurka sida ay ku doodayaan mucaaradka iyadoo lagu qasbanaan doono wada hadal dambe iyo in miiska la isugu yimaado lagana heshiiyo dhammaan arrimaha siyaasadda ee la isku hayo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isagu si cad u sheegay in dalkan wax doorasho qof iyo cod aan ahayn ka soconaynin halka mucaaradku ay diideen waana ubuucda khilaafka iyo halka la isku hayo mucaarad iyo maxaafad maanta dalkana uu jiheysay qasiye foodo siyaasadeed haddii alina xal kale oo degdeg ah oo lagu qaboojinayo siyaasadda Soomaaliya oo hadda maraysa digriigii ugu kululaa iyo meeshii ugu sarreysay marka la eego khilaafaadka halka la kala taagan yahay go'aanada la qaatay iyo Soomaaliya maanta marxaladda ay ku sugan tahay saaxiibayaal daawadayaal wanaga inta wararkii ugu dambeeyay xaaladda waddanka nabadgelyo